nabad daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan waxaa jira dad aad u fara badan oo ka cabanaya xanuuno kala duwan xanuunadaasi oo ay ka mid yihiin xanuunka xiiqda oo dadka qaba marka aad ag joogto aad dareemayso dhawaaqa ka soo baxaya feerahooda iyo dhuuntooda intaba waxaa kaloo jira dad ka cabanaya xanuunada ku dhaca qanjirku doona ha noqdee iyo sidoo kale dad iyaga oo aan waxba loo dirsan iska daalaya ama subaxii markii uu soo toosaba qofkan oo daalan uu soo kacayo taa laftigeeda waa xanuun waxaa kaloo jira rag iyagana dhibaato ku qaba dhinaca gogasha haweenkooda ama xaasaskooda waxaan rajaynayaa inaad ifahmaysaan haddaba xanuunadan aan soo sheegay dhammaantood waxaad u daaweyn kartaa ama isaga daaweyn kartaa si dabiiciya arrinta xiisaha leh ayaa waxa ay tahay waxaad ku daaweyn kartaa xanuunadan dhammaantood hal shay ama hal wax oo guriga ku yaala ama dukaanka kugu dhow lagu iibiyo oo maalin walba dabcan aad isticmaasho laakiin sida aan ku faahfaahin doono si ka duwan aad u isticmaasho waxaana muhiima dawadan in aad joogtayso oo mar walba aad isticmaasho ilaa waxani ama xanuunkan ku hayo uu kaa tagayo haddaba sidee loo isticmaalayaa muxuuse yahay waxaan la isticmaalayo waxa inoo faahfaahinayaa sheekh xamse axmed الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لهي ملكستو جوكتان وان إذن سلامية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى طبعا واحد أركيسين أنيقا أو دوقايا أو سيدو كالي على شنايا أنيقا أو مجسنايا انت بودي أركيسين طبعا باشان وحان فيليا إن أدقرتان وسنجبيل وانا سنجبيش قوين طبعا هالكاس وهالكان كدوقاية وكمودسانية كنا قوسانية قده هذا كقوسانية اون على شنية الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أصدق أيا شفاضة عافماتك داودة انتبه ربي باها يا سبحانه وتعالى قعنتي ساني أهاتي إلهي سبحانه وتعالى داودة يا شفاضة يا عافماتك لكن waxaa jiray oo soo jireen ahaa muddooyin badan ilaa intii adduunyadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray aadam iyo xaawo abuuray adduunyadan iyo koonkan rabbi taagay ilaa xilligaas ilaa iyo zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray ficilo lala imaado oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala dadka ku daaweeyo shifa iyo caafimaadna uga dhigo ficilada qaar ka mid ah bayn maanta ka hadlaynaa waxaanan jecelahay maanta ayay dawo kow ku tahay maanta ayaa caafimaad kugu horeysa haddii aad xanuunsanaysay dabcan baashan waa sanjabiisha qoyan sidaad u taqaantaan xaggan hore waan ka dhilay kadibna waan dhuuqay waanan cunay qayb ka mida waan calaashaday waana mudsaday fuudkeediina waa mudsaday alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxyaabo badan ayay daawo ka tahay sanjabiishan marka waxaan soo qaadan doonaa 3 ka mid ah waxyaabahay daawo ka tahay baan insha allahu tacaala maanta soo bandhigi doonaa waa 3 arrimood oo ka mid ah waxyaabahay daawo ka tahay sanjabiishu markay sidan tahay ay qoyan tahay ee aad saan intaad u dhisho dhuuqdo nuugto calaashato waxyaabahay daawo ka tahay 3 arrimood oo ka mid ah baan insha allahu tacaala kuu soo bandhigaya maantaana daawo kugu horeysa gaadhsii walaalaha baaraka allahu fiik insha allahu tacaala bahalka la idhaahdo xiiqda haddii shakhsigu xiiq qabo sidan oo kale unbuu sameynayaa uu dhilayaa saasunbuu u nuugayaa uu dhuuqayaa dabcan mararka qaar uu goosanayaa uuna calaashanayaa xiiqdaas muddo yar markuu isticmaalo bahashaan way iskaga tegaysaa way guuraysaa waanay nabaad guuraysaa
xanuunka labaad ay daawo ka tahay ee aan soo bandhigayo sheegayo waxaa ka mid ah qanjidh xanuunka dhammaan qanjidhaha oo dhan hadday qanjidhahaas yihiin hadday qanjidhadan yihiin hadday qanjidhada hoose yihiin qanjidh oo dhan isku dar oo dhammaan qanjidh oo dhanna daawo ayay ka tahay isla sidan unbaa loo isticmaalaya waad nuugaysaa waad dhuuqaysaa waanaad calaashanaysaa sidaas unbaad u isticmaalaysaa dariiqaas iyo sifadaas unbaad ku isticmaalaysaa insha allahu tacaala xanuunka kale ay markaasi bahashanu daawo ka tahay afarba aynu ka dhigno awal 3 baan idhi cafan afarba waan ka dhigi doonaa waayo dadka su-aalahooga ayaa afartaas ku kooban dad badan oo soo codsaday afar arrimood daawadeeda inaan ka hadlo ayaan kusoo koobaynaa sanjabiishan oo ay daawo ka tahay daawadeedu way badan tahay laakiinse afartaas arrimood ee laygala hadlay baynu kusoo koobaynaa insha allah laba ka mida waynu sheegnay waa xiiqda iyo qanjidh xanuunka tan saddexaad ay daawo ka tahay akhi walaalkay haddii aada la dhibaneed arrimaha gogosha qoyskaaga arrimaha gogosha haddii aada la dhibaneed way kaa caawinaysaa weliba si wanaagsan ayaad u raali gelin doontaa xaaskaaga anigu waxaan ka hadlayaa waa lamaanaha isqaba waa dadka yacni badankooga isoo weydiiyay su-aashaas afar ka mida oo ay daaweyso sanjabiishan ayaan ka hadlayaa haddii aada la dhibaneed xaaskaaga oo aada daali jirtay ambase dhaqso waxaad u dhamaysan jirtay ambase markiiba aada bilaa awood noqon jirtay waad ku daahi doontaa waanaad shaqayn doontaa mana daali doontid insha allah biidni illaahi baari oo si wanaagsan baad u shaqaynaysaa bas sidan sifadan u isticmaal afka hore ka dhil sidan u dhuuq muudkeeda nuug cadkaa gudaha ku jira calaasho muudkeedana isdhaafi waad raali gelin doontaa insha allahu tacaala dumaashi waad raali gelin doontaa amba zawjadaada waad raali gelin doontaa insha allahu tacaala xanuunka afaraad ay daawo ka tahay waxa weeye xiiqa shaqsigoo xiiqa daala asagoo aan waxba qaban ayuu iska xiiqayaa uu daalayaa daal iyo xiiqis fara badan buu dareemayaa waa xanuun dabcan waa xanuun magaca buu leeyahay xanuunkaasuna insha allahu tacaala gadaal baynu ka sheegi doonaa adigoo aan waxba qaban waad soo kacday waad soo toostay waad jimicsatay waabaad daashay waad xiiqday adigoo aan waxba qaban galaas biyo abaad cabtay waabaad daashay waad xiiqday adigoo aan waxba qaban baad fadhiisatay waabaad daashay waad xiiqday waa xanuun asagana waa ka daawo yacni xanuunadaynu sheegnay waa afar haddii la idhaahdo baashan la yidhaahdo xiiqda ee dadka ku kacda buu yidhaha qofku xiiq baa ku kacda waa ka daawo allahu mustacaan qanjidh xanuunka oo dhan qanjidhadaas xoqadaha amba qanjidhadan amba qanjidhada hoose qanjidh oo dhanna waa ka daawo allahu mustacaan dhanka kale ee dumaashi la raali gelinayo amba ninku zawjkiisa uu raali gelinayo ayadana wax badan bay ka caawinaysaa insha allahu tacaala aan kusoo koobna xanuunkan aan hadda sheegayay mar walba inaad daalan tahay ood xiiqayso asagana waa ka daawo maanta waxaynu kusoo koobi doonaa afartaas xanuun oo dadka bulshadu badankoogu kasoo hadleen ina soo weydiiyeen isku sifo iyo isku dariiq baad u isticmaalaysaa waa sanjabiishii qoyaneed ogow baaraka allah fiik aniga gurigayga kama dhammaato gurigayga ilmahayga waa siiyaa anigu waa isticmaalaa maasha allah sawjadayda waa siiyaa gurigayga waxyaabaha aan ka dhammaan ayay ka mid tahay kowna ka tahay sanjabiishan beydkayga waxyaabaha aan ka dhammaan bay kow ka tahay maxaa yeelay waa daawo ayada iyo toonta iyo waa waxyaabaha aan ka dhammaan gurigayga sanjabiisha iyo toonta iyo yani waxyaabahaas kama dhammaadaan gurigayga jaanisna ma siiya inay ka dhammaadaan waayo waa daawo weligeedba soo jirtay oo laysku daaweyn jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam xataa waa ka hadlay oo waa sheegay marka baaraka allah fiik aynu kusoo koobno
waad dhilaysaa dabcan marka aad dhisho sidan oo kale ayaad u dhuuqaysaa waad nuugaysaa muud baa kasoo baxay muudkaas waad laqaysaa dabcan halkaa gudaha baruur baa ku jirta baruurtaas waad calaashanaysaa afka ayaad ku haynaysaa adiga ayaaba macaansan doona bal adigu ila tijaabi adiga ayaaba macaansan doona oo iska sii wadi doona insha allahu tacaala afartaas daawo aynu kusoo koobaynaa baaraka allah fiik waa hagaag waxaan filayaa inaad fahanteen kana bogateen dawadan dabiiciga ah ee uu noo soo bandhigay Sheekh Xamse waxaadna kala socoteen page-ka iyo channel-ka Bulqaas fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan iyo channel-ka hayloobin inaad subscribe like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday hanaga iloobin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si dad badan uu u gaaro ogsoonow haddii adiga aadan xanuunsanayn qof walaalka ah ama walaal Soomaaliyeed ah ayaa xanuunsanaya oo ka faa'iideysanaya sidaa daradeed waxaanu ka codsanaynaa in aad gaarsiiso oo aad share garayso muuqaalkan sidoo kale hayloobin wixii tale iyo tusaale ah inaad noogu soo qortaan dhinaca comments-ka waad mahadsantihiin